السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال kusoo dhawaada barnaamij gaar oo aanu idinka soo diyaarinay wafdi balaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Yaasiin Maxamuud Xeer Faratoon oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ku joogay magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareed. wafdidan oo ay ka mid ahaayeen wasiirada wasaaradaha warfaafinta, macdanta iyo tamarta, deegaanka, shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay duleedka bari ee magaalada Oodweyne. waxaana xubnaha wasiirada ahi maalmihii ay ku sugnaayeen magaalada Oodweyne kulamo iyo isxog waraysiyo la qaadanayeen guud ahaanba madax dhaqameedka gobolka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. xog warankan wasiirada oo ujeedkiisu ahaa sidii ay bulshada gobolka uga qancin lahaayeen tabashooyin ka soo baxay howlaha saaminta shidaalka ee ka bilaabmi doona deegaanada gobolka. waxaana go'aamadii turxaan bixinta ee la isla qaatay u dhaceen sida tan. anigoo ah Sultaan Cabdiraxmaan Cawaale Hurre iyo Chief Caaqilada halkan iyo cuqaasha ku sugan, waxaan halkan maanta ka cadaynaynaa inaan mashruuci saaminta dhammaysanay wasiirada laga bilaabo maantana hawshiisa marka kastuu u baahdo uu bilaabo karo oo socodka hawshaas saacada aan joogno hadda marka laga bilaabo. marna waxa weeye soo saar, marna waa yeeg weey. maanta soo saar maaha, waa yeeg ta qiimo weyn baa ku jira. waxaan bulshooyinteeda u sheegaynaa yeeg taasuna qiimo leedahay. ninka geeliisa uu ku jiro ama gool ku jiraan ama arigiisu ahmi badan ku jirto, waxay roogna bakhaarada wax xamaahiya tijaarta wax xamaahisa. inaga waxaynu ku filan haday la yiraahdo uu ku jira annaga abada annaga madax dhaqameed ku bixi doona doodahaas waxba ma aha karnaaba in abaara ayaa dunyada ku baxno annaga abada helinayeen ma faahantay. marka hadda kaarkii ugu weeraaba baan qaadayna markaas annaga aba ahana dhulka ka abaxta goon dood bogsugaynin. marka halkaas waxa weeye haday inoo suurta gasho waa guul wax qasaarina inaga soo gaarmay hadii laga waayay qasaaruhu wax ku dhacaya cid wax sahminaysay inagoo yeegta maanta weeye oo waliba bila i'tiraaf nahay oo waliba nahay awoodina la garanayo halala shaqeeyo. qof kastaaba awood intuu leeyahay hala shaqeeyo, ajnabiga hala soo dhaweeyo, shaqaalaha shirkadaha hala soo dhaweeyo, hala samro. midhuhu way ka dambeeyay Soomaaliya xukuumadda malageeduga hadaan abaar marin tooga ma dugo, haddaan barwaaqada kuray loo marin heli maayo, haddaan samir loo heli maayo. waxaan bulshadayda kula dardaarmaynaa inay ilaaliyaan amniga, inay soo dhaweeyaan, inay madaxda shirkadda la shaqeeyaan, inay booliska la shaqeeyaan, inay dawladda la shaqeeyaan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirada halkan isugu yimina aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa qancinta sida wanaagsan nooga qanciyeen. anana waxaan idin ballan qaadaynaa inaan inta dambe idinka furo doono. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Chief Caaqil Axmed Chief Caaqil Xuseen Chief Caaqil Libaax, gudoomiyaha khayraadka iyo horumarinta gobolka Daadmareed. waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo iyo wafdiga culus ee wasiirada ee shanta wasiire ee loo soo diray xagga shidaalka, arrimaha shidaalka. waa sida uu suldaanku sheegay meeshii Oodweyne ama gobolka Daadmareed tuug badan baa soo galay. tuugka badanna waa shidaal lama aqoon. waa sida uu sheegay waa baaristii in loo baaro loo eego taleeyax baa ku jira ayaa Ilaahay ka baryeena. howlayaarta waxun baa ku jira, kuwan waa kuwii jabaqda sheegayay baa leeyahay waxun baa waxba ku jira ama kuma jiraan. Ilaahay inoo suuro geliyo sida Sacuudiga iska noqon doonta jabaqdaas. Ilaahay inoo rumeeyo Ilaahay ka baryeena. dadka dadweynaha naga maqan ee kuwa dibadda ku gudaan waxaan leenahay meel walba marba Ilaahay taboolka ka qaada firaj u furaaye. shidaalka jabaqdiisa la loo baarayo ee loonayo ku jira aan ka wada shaqeyno. number 1 kru xaq nabadgelyada, haddii nabadgelyada jiro waxba ma hagaagayaan. nabadgelyada ka wada shaqeyno. abaar baa jirta, dadkeena iyo caruurteena iyo dumarkeena iyo maatadeena ka wacyi gelino meesha nabadgeliyo. markay dadku nabad helaan ayaa salaad la tukadaa oo diinta laga shaqeeya oo wax la cunaa oo reeraha la dhisaa. laakiin haddii nabadgelyada jirin dadayda uma noqonayna. marka waxaan ilaahay waa arrinkii halkan ka taagnaa waa la soo gabagabeeyay. wax istusun bay ahayd, tuhurun baa jiray, waxba maqan baa lahaa. wasiiradu Ilaahay baa hore way joogeen. marka way ma shaqeeyay wixii meesha ka dhicina waa isla afkaranay
wixii aan tabanaynay waanu ka qanacnay dadkana waxaan leenahay waxaan idin soo qaadnay waa wixii meesha ku jiray wax ka badan kuma jiraan wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu wasiirada suldaanka jiif caqilada iyo caqilada dhammaan waxgaradka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaa ka socotay hawshaas labay ahayd mid annagaa lahayn haddaan cuqaashanahay iyo dadka reer Oodweyne midna xukuumadda lahayd tay xukuumadda lahayd waxay ahayd inaanu ogaano waxa nooga faa'iido ah mashruuca batroolka ee baristus bilaabmayso waxbaanu soo qorannay annagana lagu sii daayay qoraal baanu keennay 14 qodob baanu soo qorannay 14 qodobta sida la isugu daadiyay ayaa intii ugu muhiimsan waliba siyaada ku jirto nalaga soo saaray waan ku qaracnay inta loo soo saaray ee xukuumaddu noo soo saartay ee tiri intaasaa idin qabanayna ayaan anagu ku qaracnay haddaan nahay cuqaashi daad mareen chiefka bilaabee isagu hadduu chief Ahmed chief Hussein yahay chief Libaax aniguna waxaan ahay chief Abdi chief Guuleed chief Jaamac Xirsi Amaan Suldaan Diiriye ayaan nahay marka waxa weeye waanu qaadanay waxaana loo soo saaray waanu qaadanay waxaana loo ogolaaday waanu qaadanay anigu kaban khibrad baan u leeyahay wallahi siyaadan wadana waxa la soo galaado reer Soomaaliland waxa weeye wixii soo baxay ka wada faa'iideysato laakiin waxa ciidamada xidhiidh la hanmayso war soo kuma qanacsan wareer reedow saasaan ku qanacsanahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta bahasha chief Soomaaliya aniga ninkaas baan mid dheer waa chief Aqil Mataan chief Aqil Xaaji Xuseen chief Aqil Xaaji Xasan chief Aqil Ahmed kiis al-adbaan hayanigu darajayna lahayd taasheegmada beelaas karta isboobi lahayd bismillahir rahmaanir rahiim waxa leeyahay oo aad iyo aad u salaamaya oo aan leeyahay boqolkiiba boqolkiiba mahadsan wasiirada hawsha yar ee soo aan isku yara qabqabsanay maxay tahay sabaqdii ma hayniyo wax kala la baariya ahayd nagala qayb qaatay ee loo samray aad iyo aad markii hore soo dhaweynaya dadweynaha gobolka Daadmareedna waxa leeyahay wadada reer guuraha iyo casuub waa loo kala warraba shidaalka waa la baarayaa khayraadka weyn sugayna warbisaareed baa meesha lagu disay intii waayo keebalkiyo iyo mareen maxay tahay shidaalka nidaamkiisu ayaa bay abaartii bay 120 kiilo iqlaye way ka sii bandaanaysaa ku xamdiliqno walaa ma jirto waxaan dhulka ku jirina idina ka baarmayso min kale halkan marka cagaftu wax ku dhifato meelin baa qarxayo meelin la qarxi maayo Pakistan qarxi mayse dhulkii laga baaro hora qarxi lahaa leh waxa leeyahay dhangaagaalaha wadadka waxa wacan loo sheego annagu haddaan odayaashanahay waxaan xaq u leenahay inaan warka xufidin ee ka wacan dadka khayraadka ku jira xagga akhriya xagga adduunkaba aan fidino halka waxaan kaga baxaya ana qoftiiba dabadood la qalay waxa kale jiro gobolada had iyo jeer ay dhageystaan hargeysa burco balgubada meel waliba waa meeshii balaaga gashaydii maxaa ka soo baxay ma la isku haystaa waa la raaca markaa war maanta waxba kama soo bixin waa nabad qabnaa waa guuleysanay dawladii baanu haysanaa wixii ay nagu amartayna waa fulinayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kan waxaan ka salaamayaa wasaaradaha kala gedisan wasiirka arrimaha gudaha hogaaminayo say shanta habeen saddexda labada habeen nala joogtay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxa kale halkan idinka sheegaynaa arrintii yarayda halkan baaritaanka shidaalka ee hakadku ku yara dhacay waa la yara hubinayay waa la yar xisaabtamay waxa la ogaaday in nasiib aynu u yeelanay inagaan layna itiraafin oo haddii bixinayo inaynu wax walba helay oo baaritaankii shidaalka iyo waxyaalo badan oo dawladaha itiraafka haystaaba aan helin aynu helay ayaanu isla garanay waa la isla qaatay waa laga heshiiyey haddaan uqaashanahay anigu chief sheegin maayo caaqil baan ahay magacayga halkan baa laga tirsaday anigu caaqil baan ahay magacaygana caaqil maxamed hore jaamac baa la yiraahdaa waxaan idin sheegaynaa arrintii waa laga heshiiyey way dhamaatay
haddaan cuqaashanahay ama dadweynaha nahayna waanu la shaqayn doonaa waanu ku garabgeli doonaa waxaanu ogaanay nasiib inaanu helay wixii dowladaha ictiraafka lahaa aanay helin aan nasiib hele baanu ogaanay insha allah waxaanu ilaahayna ka baryaynaa in ilaahay naga siiyo oo aynu ku guulaysano ayaanu ilaahay ka baryaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cuqaasha salaadiinta bulshada ciidamada qaranka ee qalabka sida ee 24 saacadoodba heegan oo aysta u taaganayno ku raaxaysanayno haweenka aqoon-yahanada waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta axmedow jiifnimadu iyo jiifabilimadu nin waliba wuu yahay laakiin nin waliba waa wuxuu maanta qabtuu ka yahay halkaa jiifnimadu waxay soo saaraysaa waxaad maanta qabato ayay soo saaraysaa taas waa midhiga kaftana waanaan idiin mahadnaqayaa hargeysa wana qabane waxaan anigu la hadlayaa oo aan la hadlayaa hadalkaa tidhi kaa daboolamaya waxaan la hadlayaa ummaddayadii gude iyo debed miyi iyo migaalo tuulo iyo oodweyne wixii inaan geedna la jarayn aqalna la duminayn barkadna la jiidayn haddaanu nahay madaxdiinnii iyo guddidii aad soo dirateen iyo aqoon-yahanadii iyo shirkaddii batroolka iyo dowladdii miiskaan wada fadhinaa waa aragtaan qalad iyaan la fahmin geed la goynayo dhir la burburinayo daar la xagaafayo dhul rugmanayaa midna ma jiro waa cid walba ciddii aqoonta u lahayd baa lanoo keeno waa lanoo sharaxay idinkuna inaan lagu qanacdaan mar haddaanu madaxdiinnii nahay dowladda iyo u dhaxaysay shacabka fariin dheer iyo fariin gaabanba waxaan u farayaa marka hore dadkaaga waa inaad wax fahansiisaa qofka wax fahamka qaadan waayana dee xukuumad iyo dowlad iyo system cid bay u taalla waxaan leeyahay maanta ka soo baxday nuur iyo naalayaba waa loo joogaaye inaan wixii aynu ka sheekaynaynay daar baa duunaysa iyo halkanaa qaraxaysa inaan midina jirin dadkana dhulka inaan uga lexjeclo badnayn waxaanu idin faraynaa oo aan naga daawanaysaan tuulo iyo magaalaba shidaalkaasi sahamintiisu way soconaysaa xukuumad baa wadata sharaa'ig baa wata cuqaashii baa wadata aqoon-yahankii baa wata waxaan idiin sheegaynaa waan ku soo gaabinaya hadalka arrintaasi waa arrin dhammaatay oo la faguray ninkii qalad kaga jirow annagaa kaa qancinayna annagaa geedii gelgelinba kuugu imanayna annagaa dhulka kaa jecel annagaa dadkayga joogan dowladdii baa kaa jecel oo habeen iyo maalinba u soconaysa waxaan ku soo gebagabeynayaa allahu akbar allahu akbar runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa rabbiga casa wajalla ah ee runtii isku keenkeenay goobtan madaxdii dalka cuqaashii gobolka salaadiintii oo dhammaan ka midaysan hawshii shidaalka ee hadalka yari ka duulay runtii waxaan yar bayaaminaya had iyo gooraale waxaad moodaa gobolkan iyadoo iga kabtanayn dacaayaduhu ama waa rabashwalayaal had iyo gooraale lagu yarsunto qolooyinkii ku yarsunti jiray waxaan u sheegayaa ee maalmihii dhowleyd inaan shidaal la diiday marnaba aanu jirin laakiin sixul sheeg sixirka daran baa layidhi wax allaale iyo wax xumaanoo laysku hayey may jirin waxay doonayeen in wax la isfahansiiyo runtii oo isfahansiinta intii hore iyo hore la isu fahansiiyey ay ka ballaadhato tiina runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirada yimi ee wakhtigooda u huray ee markii hore warbixinaha iyo siminaarada badan bixiyey imikana u saldhigay oo iyada uu ku jiro wasiirkii arrimaha gudaha oo waddanka hawshiisa oo dhan dusha ka saaran tahay ay u joogeen 2 habeen iyo 2 maalmood aad iyo aad baan wasiirada ugu mahadnaqayaa siday gobolka daadmareed qancintiisa iyo raaligelintiisa ay ugu hakadeen waxa kale sheegaya 14 qodob ayaa reer daadmareed maskaxda iskugu geeyay in laga shaafiyo 14 qodobna wasiirka maalintii biyaha iyo wasiirada la socda siday ahayd ayay uga jawaabeen waxaana halkaa ka muuqatay
in cuqaashii gobolka oo isku dhami runtii iyo suldaankii dhammaan ay isla qaateen wixii meeshaa ay tabanayeen ama ku jiray buugal ka galay in runtii laga shaafiyey waxaan sheegayaa runtii in gobolka daadmareedh aanu ku suntanayn dad horumarkooda ishortaaga ay ku suntan yihiin dad caqli ku jiro oo maskaxi ku jirto oo markii wax loo sheegay sideeda u qaata wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane iyo marwooyinba madax iyo mijaba darajo kastaba ha ahaado ama aqoonsi kastaba ha ahaadee waxa dadka halkan fadhiya ee xafladan sida waxaan loo soo agaasimay ka soo qayb galay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabacd halkaa waxaan ka raacinayaa laba gamcood baynu nahay marka hore laba gamcood oo qura iyaynu nahay labada gamcood waxa weeye shacabkii iyo xukuumaddii labada gamcood hadday isa seegaan oo isdhaafaan waxba ma hagaagayaan had iyo goor waxaanu jecelahay oo aan jeclahay in labada gamcood iswaafaqaan waan islaaway halkii kuukowaanigiiba islaaway magacaygu waxa weeye caaqil cabdulaahi cilmi cumar raggaa jiif caaqilada la sheegatay un baana la jiif ahaa marka horeba oo la jiifay gaarumay lahayn iyagule annagaa lahayn oo laleh hadday moodayen inay gaar u lahaayeen nin waliba waa lala leeyahay dadka waxaanu isugu xidhnay markay labadaa gamcood nahay haddaanu cugaasha nahay laba qolo wasiirka arrimaha gudaha oo wasiirka iyagiiya iyo ciidanka nabadgelyada ka shaqeeya cid kale uma yeelan karo anagu markay wax dhacaan waxaanu u yeelan karaa waa ciidanka nabadgelyada ciidankaa waxaanu jeclay in la tayeeyo oo la dhiso oo ayn iyo laga ilaaliyo yaanu aada u jecelahay waayo haddii amni la waayo wax walba la waa wasiirkuna dawaaba wasiirka iyagiyo dabaan isagana diyaar baanu nahay idinka qudhina wasiirada haddaad tihiin waxaan jeclaa annagu wixii aanu nidhi waa ballan qaadnay waanu kaga dhamaynaynaa horta laysma hortaagin shidaal waxaa amoodina waxaa t v-ga aanu ka hadalnay oo aragteen wuxuu ahaa tabashay ahayd tabasho ee waanu is hortaagnay maanaan odhan haddana odhan mayno tabashadii meesha waanu ka saaray idinna waa ka saarteen waxaanu jecelahay dadweynaha idinka inaad safarkaa noogu timaadeen hungo ku noqotaan oo ku guuldaraysataan miyay idinku wacan tahay annana dadkiina soo diray inaanu ku guuldarayso jawaabtoodii iyo noqoshadoodii ma jeclin waxaanu jecelahay inaanu tiina daryeelno idina aana eegtaan oo ah dadku wixii ay ka cabanayeen ee la buunbuuniyey ee loogu sheekay dadku annagaguna maaha qaar bani wax hagaayaanba ogolayn waxaanu jecelahay inaad sidaa imika wasiiraddu u tidhaahdaan waxaynu baaraynaa wuxuu waa baaritaan haddii baydankeeda leeyahay beer la duminayaana ma jirto shidaal run baynu baaranaynaa geer la goonayaa ma jiro sidaasoo taa naga aad ugu dhawaaqdaan baanu jecelahay oo idaacadaha ka sii daysaan oo tiifiganaynu ka hadlayna aa kaga hadashaan ayaanu jecelahay waxaanaanu idinku ballanqaadaynaa annaga xagga yaga inaanaan idinka tegin oo aanaan idin xumayn oo aanaan idin nicin wixii aynu isku jeclaanaynayna xaggiinana waa jiraan xaggeena waa jiraan isoo nimaadno waxaan intaa raacinayaa dadweynuhu waa ogolyahay xukunkooda danaheenna siyaasadii aan lagu dabaqin baan taaganaanu markayga horeba kii mucaarad ahaa annagu cuqaashi baanu nahay mucaaradka caaqil baanu nahay muxaafidkana caaqil baanu nahay labadaba inaanu gacanta ku qabanaanu doonina labadaba inaanu la tashanaanu doonina labadaba inaanu warqaladka jooji waa nagu waajib inta wacanu la heli maayo haddaan kulaa inta wacanu maan raacaya inta xumad waan ka tegaya waa been ka xunina keenaabaa layga yaqaanaa
oo war soo noqo meel baan yar gaadhay kale waxaan kaga baxay hadalkaygii oo aan ku soo gabagabaynaya sidaa aan idinka ballanqaadnay idinka nooga ballanqaada mutaqin wala cudwan illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillahi muhammad sallallahu alayhi wasallam Sheikh Aqil Abdurrahman Ali waxaan halkan ka sheegayaa dadkii aan mas'uulka ka ahayn ee aanu matalaynay hawshan waxaan u sheegayaa in hawsha sidii ay noogu igmadeen ay u dhamaatay waxa jiray waxa laga wada hadlayay in hay'ad shida la joojiyo marna la joojiyo marna la fasaxo mar kasta waa la baarayaa khayraadka dalka dawladana ka mas'uula waxaan halkan u nimid amniga sugno amnigu sugan yahay wax dhibaato ah oo ka jira ma jirto waxyaalo badan baan maqlaynay leedaad meel wala isku haysta cid isku haysata ma jirto wadanku waa ammaan taa marka laga gudbo waxaanu ka hadlaynay waxay ahayd saamiga iyo sida khayraadka loo qaybsanayo iyo inaanu fahanno wixii waxyaalaha halka ka iman kara dhammaan waa laga qanciyay qodobadii halka aan isku soo bandhignay oo ka koobnaa 14 qodob ma jiro qodob la tuuray kulligii waa la qaatay kulligood waa laga qanciyay annaguna waanu ku qanacnay mar haddaanu ku qanacnay waxa weeyaan shaqadu sideedii u soconaysay hore ugu soconaysay horena uma joojin shaqadu sidee u soconaysay cidii ka mas'uulka ahayd shaqada gacanta ku haysay oo wadaysa waxa weeyaan waanu soo dhaweynaa khayraadka baaritaankan soo dhaweynaa waxaanu faraynaa dhammaan mantaqadaha kala duwan ee uu ka kooban yahay gobolkan Daadmareed sida tuulooyinka villageska meelaha yaryar oo dhan beeraha wax waxyeelay ma jiraan qof kasta waxa leedahay adigu baa lahaanaya qof wax laga duminaya ma jiro qof gurigiisa la burburinaya ma jiro barka la duminaya ma jirto aqal gariga ma jiro waxa weeyaan beer la xagaafaya ma jirto waxa laga horbayro hal soo dhaweeyo dadka shaqaalaha hal nabadgeliyo hal la shaqeeyo taasaan farina sidaas ayay ku dhamaatay wassalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh xaqii jiifnimada anigu waan jooga ma jiifo jiif aqilkii baa Ismaaciil Lawaane afar baan tirsada intaas waa iska kaftankii hore wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo shacabka reer Daadmareed iyo ciidanka intaba waan salaamaya anigu waxaan ka mid ahaa qoladii shirka jaraa'id halkan ku qabatay maalmihii hore shirka jaraa'id qoladii halkan ku qabatay baan ka mid ahaa dadka deegaankuna wixii aan ku hadalay iyaga nafaro raalli bay ka ahaayeen marnaba diidma maanaan muujin cidii dhageysatay shirka iyaga jaraa'id shidaalka la baari maayo carabka iyaga ma yahay kumanay jirin waxaanu ka hadlaynay wuxuu ahaa tabasho aan saamiga ama shaqada aan wax ka tabanaynin tiyada ahaydna si mugle oo buuxda oo wax naloogu daray oo tii deegaanku uu doonayay iyo dadka iyagu ayaa naloo siiyey mar haddii wixii aanu doonaynay xukuumaddii iyo wasiiradii noo yimi ay nala qaateen waanu aqbalnay waanu fasaxnay shidaalkii waa soconayaa horena umaanaan joojiniyo maanaan diidine wuxuu ahaa war xaqa nala siiyo hoosa naloo eego war hoosa naloo eego saamigaanu wax ka tabanaynaayo saamigayga hanala siiyahay saamigiina waa naloo kordhiyo waa sadbursiibaa nala siiyey sidaa daraaddeed aad iyo aad ayay xukuumadda iyada iyo wasiirada noo yimi intuba ay u mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigu xagga horaan marsanayaa badin maaye baalka waxaa ku aqaanaa haddii hadalka la badiyo inta horunbuu ka qora
inta damboodha waa laga tagaa wasiirada iyo dadka halkan khiyaarta leh sharafta leh isugu yimid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka intaa waxaa i raaca halkan waxaa leeyahay jiif caaqil yuusuf jiif caaqil maxamed jiif caaqil quulle jiif caaqil cismaan afar jiif baan ahay mataanun baa iga sarreeya odayaashii hore uqaashii hore beledkan baanu nahay dadku caaqilka marka la doorto dadkiisu waxay u doorteen wixii khayraadku ku jiro inuu u soo qaado wixii wanaaggu ku jiro dowladdiisu inay uga timaado inuu soo qaado maxaa noo dooranaysay haddana waxba lagu aaminin waayo wixii mas-uul baan idinka nahay ilaahay baa na weydiinaya dadkaana doortay wixii haddaanu wixii wanaag u ahee loo baadhayo haddaanu ka hor joogsanno ee carruurtooda iyo ayaguba ay ku manaafacaadsan lahaayeen ilaahay baa na lagala xisaabtamaya aakhirana waa nala weydiinaya haddaanu xumaan u soo jiidnana ilaahay baa na weydiinaya xumaani ma jirto wasiiradayadii iyo dowladdayadii maxamuud siilaaniyo waxay isla qaateen inay waxaasu wanaag yihiin annaguna waanu la qaadanna waxaan markaa leeyahay walaalayaal wixii wanaagaanu idiin soo qaadnay sideedaa loo qaadanaya oo nabadgelyaa oo walaalnimaa wixii waxtaree ku jira waanu idiin soo qaadnay wixii wanaaga ku jira waanu soo qaadnay dowladdeena iyo dadkeenna waxaanu ka shaqaynaynaa waxaa inuu ilaahay inoo rumeeyo in wax laga helo iminka waa jabaq baa la dhegaysanayaa jabaqdaa inuu ilaahay mid badan inooga dhigo ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay roobkiisa inuu inoo shubo oo ina soo kala furto oo iminka abaaraa lagu jiraayo ilaahay naga soo jebiyo ayaanu ilaahay ka baryaynaa oo dhulka xoolihii laga baxee manaafacaad aynu beerano ilaahay inooga soo saaro manaafacaad aynu ku manaafacadsano ama mid shidaala ahaado ama mid beereed ahaado ilaahay inooga soo saaro waxaan walaalayaal kaga baxayaa halkaa waxaa la isla qaadanay inuu shaqeeyo shiidaalkii haddaanu nahay gobolka daad madheedh wasiirada iyadana aanu ka aqbalnay kulana shaqaynaynaa dowladdii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alaamuruduya wadiin waxaan aada u salaamayaa wasiiradan halkan noogu yimi ee sawirka badan leh ee aada u qaaligaabaan horta marka ugu horreysa aada u salaamaya waxaanan idin leeyahay waa wasiirayaal aad baa u samir badantihiin inaad samirtaana waanu idinku mahadnaqaynaa samirkaa faraha badan le aad samirteen iyo xaaladda dhinac walba aynuu rognay waynu dhammaynay waa xilli dambe hadal badanoo loo kaalmoodaa ma jiro waxaan ku soo gebagabaynaya aan leeyahay kelmad keliya baan weydiinaya mid horta marka hore wasiirka waxaan leeyahay dhowr goor buu wasiirku yidhi qolada dambe erar baa gaadhaysa baalka mal anigu waan kaa yaro waa gaadhaya anigu haddii allaydmo taas waa kaftan ta kale waxaan leeyahay waa tanoo shaki badan baa jira haddii la shakisanyey ood weyne waa dee habaryoons haddana waa si xaafadayada ku soo horraysiiyo annaga aada u jecel nagu soo horreeye wasiirada madaxda kale dowladda cuqaasha dhammaan waan salaamayaa salaan kadib waanu qaadanay batroolka iyo hawshiisii mar haddaan lacag nagaga baxayna dee mid naloo soo saarayo dee annagaaba hantideeda kaga shaqayn lahayn haddaan la soo bixi karayna beel hore la soo bixi lahayn waxaanu leenahay waa idinla shaqaynaynaa waa idin barbar taagannahay hawshaas waa idinla qabanaynaa waa garabkiinaanu taaganay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu bismi illaahi raxmaan raxiim hawshii xubnaha golaha wasiirada uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo golaha wasiirada la socdeen uu wasiirka macdanta iyo tabarta marayay golaha dhaqanka uu hogaaminaya sultaan cabdiraxmaan cawaale hore jiif caaqiladii gobolka daadmadeed badidoodii intoodii faraha badneed aan qofka ka maqnayn alxamdulilah baan leenahay annagu waxaanu ka mas-uul lahay dowladda ayaan u joognaa halkan waxaan fulinaynaa kolba awaamiirta howlaha qaranka iyagoo u baahan isku waridda iyo wada socodka iyo wada tashiga waxaan ku faraxsannahay horena u tabaynay
baalashii aan runtii aanu adeegsan lahayn ee qaybaha bulshada inaan maanta runtii iyaguna badidoodii ay gobolka joogaan mudane wasiir iyo mudanayaalba waxaanaan runtii jecel lahay inaan horseed ka noqonno uqaashii iyo maamulka iyagii is hogaaminaya inaanu sidaan loo soo bixi lahayn sida looga dhaadhicin lahaa shacabka sidii hawshaasi runtii sidii ugu habbooneed ee ugu fududeed ee tusaalaha loo soo qaadan lahaa gobollada somalilan kale ugu soo qaadan lahayn insha allah inay noqoto wax walbana tusaalaha runtii la noqdaa maanta ismali caqli u maqan daadmareed baa jira hawshaas yaana runtii naga noqon reer Oodweynow iyo reer Daadmareerow hawl mar dambe runtii caqabad iyo challenge iyo propaganda dambe aan runtii soo bixi lahayn anaguna runtii waxaan fulinaynaa awaamir kasta oo ka soo baxda xukuumadda garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siidaayo inaan fulino anoo ka wakiila kuna hadlayo magacayga iyo magaca golaha deegaanka شعب كدبيرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وحنا كسلام يا قولها وسيرة عقاشة يسلطان كبا كل مركب كوال هدي عقاشة قاطين وعي دتك وعي قليليان شيدان كينا لبارو سعانيو wax ciidan aan raacinayna ma jirto idinka ciidan noqonaya u soo diyaar garoobo wadaya waxa naga ciidan naga baxaya ma jirto u soo diyaar garoobo halkaan boolis iyo wax ka raacin lahayn kulli dadkana waxa uu sheegay عقاشة haday dadkii wax u sheegto waa la baaraya shidaalka uu soconaya waana taa wax ugu sheegteen iyo ku soconaysa ta kale kulli wadankeenu horumar buu gaaraya maalinta ka dambaysa tan waxa noqonaysaa tii lagu ictiraafiyo wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland waayo marka shidaal loo soo saaro waxa noqonaysaa dad wadamada inuu kala baratanayba kulli arrinka intaas ku soo gaabinaya salaam alaykum suldaanka chief caaqilada odayaasha halkan fadhiya ee gobolka Daadmareed magaala madaxdiisa Oodweyne oo aan maanta ku sugannahay wasiirada sharafta leh oo hogaaminayo wasiirka daakhiliga dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waa maalin qiimo leh annagu waxaanu ka mid ahayn wafdi uu soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 5 wasiir baanu ka koobnayn wasiirka macdanta Xuseen Cabdi Ducaale wasiir Shukri Ismaaciil Xaaji Bandare wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga wasiirka shaqada iyo horumarinta arrimaha bulshada wasiirka daakhiliga Yaasiin wada garanaysan dhamaantiin iyo aniga waxaan hawshan u soconayna waxay ahayd arrinta shidaalka sahaminta shidaalka ama hubinta inuu Daadmareed bloggan la yiraahdo saddexda qaybood kala baxaa inuu ku jiro maxaan ku radaa shidaal rasmi arrintaas hadal badan baa ka taagnay laakiin maanta waxa alxamdulillah in lagu heshiiyay la islaaf gartay inuu shidaalkii sahamintiisi uu socdo wixii hadal lahaa ee jirayna lagu wada heshiiyay waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka maxaan ku radaa daakhiliga Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir ama loo yaqaan Yaasiin Faratoon oo gudoomiye gudiga maxaan ku dhahaa waa wasiirada halkan Socdo oo hogaaminayay aniguna run ahaantii aad ayaan jeclahay inaan uga mahadnaqo salaadiintii iyo chief caaqilladii iyo uqaashii odayaashii halkan joogay sida quruxda badan ee maamuuska iyo milgaha iyo qiimeynta leh ilaa intii aanu joognay maxaan ku dhahdaa Daadmareed gaar ahaan magaaladan Oodweyne maxaan ku dhahaa sida sharafta leh noogu soo dhaweeyeen ugu maamusay macal wasiir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدا وزيركو شاقي عداتين سرادين عقال وحكرد يبرشدي خير Daadmareed waxaanu halka u nimi kooxdeeda wasiiradii in aynu ka wada sheekaysano iska shaafino iska dhaadhicino iska wareysano sida aad u aragtaan iyo sida bulshadu ay u qaadatay sahanka shidaalka ee ka bilaabmaya gobolka kan
arrintaas sida aniga igu muuqato si wanaagsan wax markii hore la qabayba wax kasta oo idin soo gaaray wax kasta oo mataqaanaa mudmadoo jirayba waxaan qabaa inaynu si wanaagsan isaga shaafinay si wanaagsan isaga fahanay si gobolnimo leh oo waxgaradnimo aad u soo dhaweyseen oo aad aqbasheen oo u qaadateen in bulshadu aragto inay reer Daadmareer u dhan yihiin inay mashruuca rabaan inay hirgeliyaan oo deegaankooda ka hirgalo sheekooyin badan baa mararka qaarkood meelaha laga fidiyaa waxaan jirin baa la abuuraa wixii su'aalo waxaad ka qabtaan oo aad rabtaan inaad xogogaal u ahaataan un bay ahayd baanu qabnaa markaanu eegnay waxaad u baahnaydeen tiina markaynu is xogaysanay oo aynu isu warranay waxaanu aaminsannahay oo aad ku ballan qaadeen in aad si wanaagsan inaad aqbasheen oo u qaadateen dantii qaranka iyo dantii deegaanka labadaba inay ku jirto si gobolnimada ayaad noola dhaqanteen aad iyo aad baanu idinku mahadinaynaa aad baanu ugu faraxsannahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma badinayo waxaan yaro kala sheegayaa labadeeda dareen shalay iyo maanta labadaa dareen baan kala sheegayaa dareenkayga shalay ma wixii aan filayay mise wixii aan kula kulmay madasha wixii aan filayay ma noqon wax kale iga soo baxay waxaan filayay wuxuu ahaa waxbaa maskaxda ku sitay oo meeshii iyo raggii iyo deegaanadii de Somaliland baa eegaysay ilaad war muxuu ahaa caqliguba malaha de markay la ingiriiskii muxuu ahaa dib la isku raaco oo talaba halkaasay taale de inay muxuu ahaa saacad iyo laba wax noogu dhamaanayaan oo gam ay noqonayso intaasaan filayay maan aragay wax kale ay ku soo baxay marka ilaa xalay de rag odayaalo waa kaftameynay oo waxaan la garanaysaa wareede taladu misna ahaan jirtay mise waxba si ah way hagaagi doontaa ee wasiirka degdeg tiina way soo baxday dareenkayga maanta marka ku soo ururiyo waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay yaani maartay tii aan filayay baa maanta soo dhacday chief qalladii iyo suldaanadiiba waa kuwaas muxuu ahaa hadalkooga maqlaysaan arintaas muxuu ahaa horumarka ah oo ay xukuumaddu muxuu ahaa wado oo muxuu ahaa intii yareeda la maqlay de shanta wasiir loogu soo diray muxuu ahaa inay laga wada hadlo way dhamaatay si wanaagsan bay ku dhamaatay way soo afjareen suldaanada iyo caaqiladu sida ay uga hadleen baa ka asala hawsha saasay ku soconaysaa anaguna aad baan ugu faraxsanahay waana idin mahad celinaynaa aad iyo aadna waa muxuu ahaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii maalin farxad la weeye ururkan maanta aynu halkan ku qabanay oo maalinkan maanta wixii aan u soconay aan u nimi magaalada Oodweyne si qurux badan oo tafaahuma ay ugu dhamaatay markii horena aan shaqo jirin inaanu halka kaga tagino anagoo maalinkan maanta ay isfahmeen reer Oodweyne reer Daadmareer hawshan maalinkan maanta halka ka socotay ama ka bilaabmi doonta waxba idinka saari maayo suu tafaahimka moogtay dadka qaarkii uu ka fahmay ama dareenka cabsida leh ee marka dadka qaarkood ka qaatay waxa weeye hawshan aanu maalinkan maanta halka ka wadno ee ka bilaabmi doonta ayaa iska leh waxaan la yiraahdaa petrolku de waa petrolku horta wax kulul xasaasiyad غير caadi dadka ku beera waxyaabahaas marka runtii waa wax meel walba hawshaasi ka bilaabmataba ka yimaada wax غير caadi ma aha in dadku ilaaho wixiina wax ku cusub bay marka lagu bilaabayo la baariyo ay tahay deegaan waliba saasoo magaalada cabsi uga qabaawlay wariya miya lagu dhacaya muxuu ahaa maxaa meesha ka socda badalkiiba ululayo baabaaya waxyaaba caynkaas waxa weeye wax caadi ka dadku marka maalinka maanta hawshan soo gasho anagu wasaaradahan waxaan isku daynay inaanu wacyigelin samayno oo dadka wax u sheegno oo wax ka dhaadhicino intaan hawshan la bilaabin waanaanu nimid deegaanka iyo magaaladaba mar iyo laba iyo saddexba hawlwadeenada wasaaraduna marar badan oo ka sii dameysay ayay yimaadeen laakiin iyada waxaasay jiraan waxaasoo wacyigelin jirto misana waxa jiray oo dhacay in waxyaabo midmadow dadkii ku beeray
oo la soo gaadhsiiyey inay qalaanqal ku sameeyeen dadkii oo is yidhaaheen meesha waxbaa khalad baa ku jira. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maadaama maanta anagii afartan wasiir ee la socday maanta noogu imaa halka isugu nimi wixii madmadow idinkaga jiray waan idinka dhaadhicinay. runtii aad iyo aad waxaan idinka mahadnaqayaa odayaasha gobolka Daadmareed oo maanta halka intoodii muxuu haldoorka joogaan inaa hawshii markaanu idiin sharaxnay idiin fahansiinay madmadowgiina aan wixii idinkaga jiray aan idiin sheegnay inaa qaadateen inaa hawsha nala garab gashaan oo nala shaqaysaan oo soo dhaweysaan aad iyo aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya gedigiinba. waxaan kale u mahadcelinayaa walaaladay maanta isoo garab galay ee hawshan maalinkan maanta aan idinku nimi ila socday oo hormood ka yahay gudoomiyaha guddigan wasiirada idin yimi wasiirka dakhliga iyo labada wasiir ee deegaanka ee qaaliga saaxiibkay Ismaan Saxardiin Cadaani iyo wasiirada Shukri oo halkan maalinka maanta waqtigooda qaaliga igu soo raacay labadaas saddexda wasiir iyo wasiirka shaqada ee shaqaalaha oo aan maalinka maanta la'aantood aan muxuu haayay waxaan oo maalinka maanta la fagura iyo muxuu ahaa moogtay yani aanay ka dhaceen. aad iyo aad baan iyagana uga mahadcelinaya. halkan waxaan doonayaa inaan yara taabto waxyaabahan isla qaadanay wax markii hore idinka maqnaa oo cadaalad darro aanu ku jiray oo aanu maalinka maanta moogtay imika saxray horta ma jiro. wixii uma midmadu ku jiray oo si khalad loo fahansanaa wixii uma bayaaninay wax maalinka maanta aanu moogtay yani xaq uu leeyahay gobolka Daadmareed ama uu doonayo ilaadaanu meel dadafaynay oo imika dib uga noqonay horta ma jirto. waxa kale aan halkan ka cadeynayaa wixii maalinka maanta muxuu haayay dheeraad ee maalinka maanta aan ka wada hadalay ma aha mid aanu cid kale ka soo goynay aanu xaqoodii doodsinay ma aha. waxa weeye gobolkan gobolada laga shaqeynaya waxa weeye waa 4 gobol ay hawshan maraysaa. hawshan 4 gobol bay maraysaa. galbeedka Burcay ka bilaabmaysaa waa balogan galbeedka laga shaqeynaya qayban ka tihiin waxay soo maraysaa gobolka Daadmareed waxay maraysaa qaybo kamid ah Maroodi Jeex waxay gaadhaysaa ilaa muxuu ahaay gobolka Hawd. marka cid aanu maalinka maanta muxuu ahaay yani aanu idinka soo goynay xaqoodii ka soo goynay oo aanu idinku soo daray horta ma jiro. waxa weeye wixii aad lahaydeen xaq u lahaydeen ayuun baan idin bayaaminay taa runta hal la ogaado. waxaan markaa anigu hadalkayga ku soo goynayaa waqtiga imika aad iyo aad u gaaban sodcaal aan noqon doono sida ugu dhaqsaha badan leh inaanu aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ba idin mahad celino ina hawsha nala afgarataan si tafahamkii ku jirayna aan meesha ka saaray imika aan wada shaqeyn bilaabi doono. aad iyo aad baan idinka bacay. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. wax garadka reer wadweynaba aad baan ugu mahad celinayaa gobolka Daadmareed caasimadeedii ah golaha wasiirada ku wada socono oo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha. ilaahay baa mahadlay ilaahay baa ka abaal siin doona runtii waana shaqadayadii runtii dawladda noo igmatay inaanu runtii u shaqeyno ummadda oo u adeegno ummadda. waa ogtihiin Soomaaliland maanta waa dal curdina waa dal soo koraaya waa dal soo ordaya 25 sanadood baynu dhamaysanay 25 sanadood darajadii labaad baynu ka koray darajadii labaad ayaynu koray mar hadda 25 rubuc qarni aad xidhay nus qarnigii baad ku socotaa. shidaaladii dekadii madaaradii caalamkii baynu u furmaynaa dalal fara badan baa maanta oo adduunyada doonaya wax baadhaan baan baaranaynin waxaan u baarin waayay because petrolkii baa jaban oo aad iyo aad u jaban ayuu u baari waayay kharashkaas la wada diidaya. laakiin dawladda Soomaaliland runtii way ku dhiiratay oo dib ugu yeedhay shirkadihii oo tiri baara annaga qabna fayska hore dawladda Soomaaliland baa qabta sida ku ogsoontiinba dib baa loogu yeeray waa ka maanta labada meelood inooga bilaabmay. jabaqdan ma aha hawlyar kuma iman jabaqdan la leeyahay la dhageysto dawladda hawl fahmina wuxuu saa loo garaacayo waxa dar 15 gaari oo mid walba gurigan leegiyo ka dheeriyay oo taayiradu inaga dhaadheer yihiin ayaa la keenay. hawlyari ma ahayn 15 marka la keenayo qofkii arkay baa arkay oo shalay waa soo yaabay daraad yaabay helay markaan arkay baabuurtu intay la leegtahay iskama keenine taa xoolo ku fadhiyaan waxaasi anigu waxaan leeyahay jabaqda yar la inoo sheegaya mala ilaahay 10 jabqood buu inooga dhigayaayo mar hadii diyaarada martay cid kana martay oo jabaq oo baabuur la keenay qalab wada oo waxaan maleeyahay Xuseentii maanta ku guuleysan la Wasiir Xuseen inay taan ay runtii tahay dawladda Soomaaliland
ay runtii madaxweynahuna uu ku ammaanayo dowladdiisu ee qaatay fikirka qaatay inay u bareeraan maanta jabaqda cid kastaaba ka baxsatay dowladda waaweynina aanay runtii isku dayin uu jabayay maanta shidaalku laakiin kor buu sii socda maadaama inaga jabnidana bay nagu filan haddii la soo saaro oo la waxba inoogu jira intaasaa la isku dili doonaa hadhowto intaasaa la isugu iman doonaa haddii la yidhaahdo mid kaliya baan ku noqonayaa waxa weeye anagu waxaan ka mas-uulay deegaanka وانا aragtayno waxaan la dagaalanaa dhuxusha waxaan la xaalufkan la dagaalanaa xaalufka maanta inagu dhacayna mid aynu aragnay maaha mid aynu maqalayna maaha waa mid ilaahay inooga gargaari doono subxaanallah xaalufka waxa ugu wacan waa dhirtana waan ka heshiinay wasiirku waxa laaliyo wixii ama guri ama barkada ama wixii ku beegmayo dhan in laga duwo oo si wanaagsan looga duwo waxa weeyaan beeraha mar haddii beer la soo galay waa taa laynoo sheegay saasay wasiirka kolley aad uu ka hadlay si wanaagsan buu gaal laakiin anigu waxaan leeyahay marka beer la yimaado ee la furo ee la istabageliyo intaa yar ay marayso dee waxa weeyaan meel yar oo saa loo marayo beerahana waynu waraagno waa geedo inta badan caws baa inooga baxa ninka annaguna maanta cagaf kale aanu soo iibsanay oo shalay u sheegay dadka oo dhan cagaf kale ayaanu soo iibsanay wadanka oo dhan cagaftaanu u soo iibsanayna waxa weeye oo dalla oo tay inaan anagu ku qaadnaan u soo iibsanay waa cusubta waxay noo fadhaa halkan ama ninkii cagafta lahaa ana ku arkay barcan ku arkay cagafta waxaan u soo iibsanay inaan maaragtay dhulka la iska ootay blaashka la iska ootay xooli laga xidhay inaan ku hagaajino beeruhu way kala jiraan dooxooyin baa jira kuwa dooxooyinka ee la ogaa qarniga jira dooxada ahayd qarniyada la ogaa taas waxay ahayd beer qarniya كلمة كسكوت تسيرك ومقعد أنت سو كيلومتر أوتي تعرفتيدنا ويتعالي. هذا ما دوني هو كمان ده سوحوي وحلاقيه ولا إلا إذا هالشيء بحوي هلا جاري هالشيء كسوحي تشوف على إن هالك الجودة جاري حضاي بيرتهاي بيرتو حلو دينا يا طفل لقلي حضاي دارتهاي يهدي جد وين تهاي يهدي درجتهاي يهدي عريش تهاي يهدي معاكم هذا عيال تهاي يا أنت هو ولا قبيل ولا يهدي حبال تهاي أنت هو ولا قبيل يا قد بدك هذا سلقته وحكم ذا وحلا وحي قندراسية معاكم هذا بلوج كسعودة بلوج جنوب معاكم هذا وضع قاعدنيه ومعاكم هذا اللي ودويني أنت ميلاد ومرو أي كل ديجان أنت هاسم معاكم هذا قاعدنيه قندراسية واسداس وما مال كلا وحلا معاكم هذا سيد اللي جوي شيء سيد هرنا هاد قلب كلا وحوي شغالها اللي جوا حدي شغالها إلى مضح إلى معاكم هذا هوساتك إلى كوا كام كشغينية إلى وعي معاكم هذا جد ما تسويهين وحوي يدرون أنت بلوج ومريو أي معاكم هذا قاعدنيه قيب معاكم هذا بلارنا رنتي هالكن دتكم معاكم هذا قاعدنيه وحكلنا سلقة قاعدنيه رنت مين هذا حق لوجه حدي إنه دولة دارين كقاعدتي وأنا كوضح حدي إنه دولة دينا نقول نقول إنه يمحاكم هذا شركة ديبا سيد محاكم هذا رنتاس لو أنا عندي واحد داوعي دمشق مدنا أنا كوي من مادام مينوي فرق بدني أي دلك محاكم هذا كوجرتو وحكلنا سلقة قاعدنيه ويجلنتي ومركي هوري لوجو تلاقي له عشان يلواتن إن الولي بكورينه وصدق كله أنا كودرنا يوم أنت هيسيدي لواتن تهاي قبل كوردنا محاكم هاي ديجان ده قبل كوردنا قبل كيو أنت كله بلوج كتر سنبا هذا مرود شح تهاي هذا تهاي بلجو باللبة ويدنا أنت با محاكم هاي تقدر أربعة ومحاكم هذا ومريو ويدنا ويجلنتها سواء من محاكم هذا الرسمية أو تهاي على كل حال وحنسلق هذا إنه وحلا وحي منافعة برنامج هالكن ما أنت ويماده محاكم هذا بلوج الأولية إنه هاوش عاس منافعات كذا يلانسو ما شو شدال كبري كام كي يشغلوه ما شو مرينا يجريها كردو ذي نظام كاسي يقولوه ذو ما أنت يدنا وحيا قندراسيا أي محاكم هذا قاتي جرينا ما أنت دكمدي لك كرستي مجال دي هذا على محاكم هذا وحي كله منفعة النفرة أي محاكم هذا يدتك ماشاس ومريو وحنشال هاي وحا كله رنتي أفريت وقت قضب مركان يسكول العلني وحا كسر بحيوان انتاس انت يدتك يعقاش يدتك تكله قضب كان قدر يحوي وحلا وحي عبارها الدولة وأحمد محمود سيلاي وكل وذاك كذا حرنا ويوها لأن جمهورية السومال لا نردن تعب مرينا ما أنت اللي نشوفه ده لو كل ما الله صادره وما أنت إلا الله بقول بيرته لو غايبنا يو سيدي أنا أول بوجه الجليني أيام يجينا
haddaanu dowladda madaxweynuhu yahay iyo guddida abaare ee madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan uu hogaaminayo sidii bay ugu gurmanaysaa laakiin mar walba ilahay baynu waxaan ka baryaynaa inuu raxmaadkiisa oo maxaan ku dhahdaa inoo siiyo qodobka kale aan ku daraya waxa weeye meeshan wax siyaasadii ma taalo wax maxaan ku idhaahdaa isceebayna iyo wax ku riixi iyo hebel ku riix iyaduna ma taalo taa waxaa nooga markhaatiyay salaadiinta iyo cuqaash jiif caaqladii iyo cuqaashii halkan joogay oo aan xisbiye laga fakarayna danta ummadda intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijkeennii gaarka ahaa eanu idinka soo diyaarinay safarka wafdidaasi waa sawir qaadistii sayid maxamed cumar iyo anigoo muuse salebaan maxamed ah oo barnaamijkan idinla socodsiinaya islamarkaana isugu soo kiindulbariday tan iyo intaynu barnaamij la mida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.